هنقن نينكا نفتيسا قيامي أو كله سودو انت اينان uguda galin mawduuca aynu ka hadlayno fadlan subscribe sar channelkeena dunida maanta wad mahadsantahay 60 sano oo uu injineer ka ahaa shirkad dhismo ayuu go'aansaday in uu shaqada ka tago wuxuuna shirkadda u gudbiyay warqad shaqo ka tagis ah maamulaha shirkaddan oo injineerka ka aqbalay shaqo ka tagista ayaa ka codsaday in uu shirkadda u dhiso gurigii ugu dambeeyay inta uusan shaqada ka tagin una ka aqbalay injineerkii isaga oo dibsanaya kana cagajiidaya in uu maalmo kale shaqadan sii joogo wuxuu guda galay dhismaha guriga laga codsaday si uu shaqada isaga fududeeyo ayuu shaqaalihii wuxuu faray in ay dhismahan boobsiyaan taasina waxay meesha ka saartay tayada iyo quruxda uu guriga yeelan lahaa markii uu dhismaha dhameeyay ayuu maamulaha ku wareejiyay furihii guriga maamulaha ayaa ku yiri injineere anagoo ka xun in aad shaqada ka tagto waxaan kaaga mahad celinaynaa waayihii dahabiga ahaa ee aad nala soo qaadatay markii ay warqadaada ruqsada ahna soo gaartay ayaan ka tashanay arrinkaada waxaana go'aansanay in aan guri abaalmarin ahaan ku siino waana guriga hadda aad adigu gacantaada ku dhistay ee naga gudoon maalinkaas ayuu injineerkii ka shalaayay in uu fududeystay dhismaha gurigan maadaama uusan u dhisin si fiican uuna noqon doono guriga uu ku dhameysan doono noloshiisa inta ka hartay sidaas oo kale waxa ah cibaadada oo laga yaabo in aad iska fududeysato marka adigoo cibaadeysanaya ay naf iyo shaydaan ku faraan in aad boobsiiso oo aad meel ka daahayso xusuuso in waxa aad u degdegayso iyo waxa aad ka cabsanayso in ay ku seegaan ay rabbi gacantiisa ku jiraan cibaadada aad gudanayso adiga ayaa leh ajirkeeda iyo abaalkeeda adiga ayaana maanta ah injineerka ka shaqeynaya dhismaha aakhiradaada ee u hagarbax allana u kaasho dhisidda mustaqbalkaaga aakhiro waad ku mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga mawduucan fadlan saaxiibada la sii wadaag